waa mid ay gacan weyn ka geysanayso dawladda Turkiga kaas oo dib loogu dhisayo guriga golaha ummadda Soomaaliyeed oo ay ku shaqeeyaan golaha shacabka. Dhismaha guriga ayaa ah mid aad u gaboobay waqti badanna dhisna waxa sidoo kale dhismahaasi uu burbur ka soo gaaray dagaaladii isaga dambeeyay caasimadda Muqdisho ayay ku kala saxiixdeen dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya mashruuc dib loogu dhisayo xarunta golaha shacabka ee Muqdisho si uusan hakad u gelin howlaha golaha shacabka waxa dhismo kaleeto oo si kumeel gaar ah ay ugu sii shaqeyn doonaan golaha shacabka laga dhisayaa xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho dabayaaqada sanadkan 2018 ama bilowga 2019 waxa la filayaa in uu si rasmi ah u bilowdo dhismaha cusub ee xarunta golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana xaruntaasi si wada jira ugu wada shaqeyn doona labada aqal ee dawladda Soomaaliya. Heshiiskan waxa dawladda Turkiga u saxiixay safiirka Soomaaliya u fadhiya halka dawladda Soomaaliyana u saxiixay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wadajir ayayna warbaahinta ula hadleen. Çalışmalarını sürdürmesi ve bilahare yeni modern binasında çalışmalarına devam etmesinden dolayı duydum. Maanta waxa si degdeg ah u bilaaban doona markii kan la saxiixo aqalka oo isku meel gaarka ah oo muddo la ii sheegay ilaa 5 bilood ku dhamaan doono ka bacdina loo guuri doono xagaas aan shaqo waxaan u guuri doono mahad gaar ah ayaan rabaa inaan u celiyo deeqda ay noogu deeqdeen dawladda walaalaha aanu nahay ee Turkiga jamhuuriyadda Turkiga iyo gaar ahaan inaan martaan si gaar ah ugu mahad celiyo banjiraha oo asagana si aad ay isugu xilsaaray fulinta iyo kamira dhalinta arrintan waxa kale oo ayagana mahad gaar ah mudan guddiga saaxiibtinimada ee labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Turkiga oo hadda maanta horteena fadhiyo ayagana qaybta ay ka geysteen arrintan intii muddadii ay soo socotay iyo wada hadalku u socday hadda sidii loo soo dejin lahaa gacan weyn ka geystay. Nuure Maxamed Cali, Hon Cable TV, Muqdisho.